اللهم احفظ لي أولادي ويسر لهم أمورهم وحقق مطلبهم ولا تجعل الابتلاء فيهم واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan meel joogtaan waa mar kale iyo muuqaal cusub. saaka waa subax jimco ah, hooyooyin badan ayaan rabaa in aan u faa'iideeyo heesto caruur yaryar ilmaha mawduucyadooda ama cuntooyinkooda sidii aad horay ula socoteen jadwalkooda waa inuu sidii insha Allah oo wax yacni ku imaan doono habsami ma lahan. mar walbo waxyaabaha aan isdhihi karo hooyooyinku ka faa'iideysan karaan ayaa meeshaan nigula soo wadaagaya, laakiin halbowle channelkan waxa uu ah in uu ku ifbaxay ama oo yacni aad u weyn oo uga soo muuqdo in cuntooyinka caruurta looga soxo waliba jadwalka caruurta si aad ah channelkan uu u noqdo mid ictimaado ama yacni loo soo tiirsado. maantay sida aad u jeedaan waxa ku bilaabi doonaa quraac caafimaad leh caruurtaada aad u weyn aad wax badan uga bedeli doontid insha Allah biidnillah. mar walba aad isku daydid in aad quraac sameeyid waxa wacan in ay noqoto quraacdaas aad sameeyid caafimaad leh. waxa u baahan tahay xabad moos ah, hal xabo oo ukun ah ama beed ah. waxa kale aad u baahan tahay mushaarida guriga ku diyaarsan kartid ama hadii kale mushaariyada diyaarsan. intaas ayaa si fiican isugu qasay pancake ayaa ka soo dubay hal xabo ukuna wax yar subaga ama saliid macsaro ayaa ku soo dubaysa gees ayaa u dhigaysa cunugaaga. waxa kale aad u sameynay cuntooyinka diyaarsan oo dhalooyin ku jiro oo caruurta daartid oo ugu darsan kartaa ay furuud wax ka celinaya ma lahan. intaas ayaa quraac cunugaaga uga dhiganaysa quraac caafimaad leh waaye. markii la gaaro barqadii waxa u baahan tahay hal xabo oo bataati macaan ah aad soo dhaqday soo nadiifiday ka bacdina biyo ku kari ama soo uumtay aday ku taala, laakiin waxa uga dhigan kartaa barqadii iyo qadada inta u dhaxayso ayaa sii kartaa. qadada timekeeda markii la gaaro waxaad u baahan tahay in aad u karisid cunugaaga qayb chicken kamid ah ayaad u baahan tahay. waxa kale aad u baahan tahay hal xabo oo baradho ah. waxa kale aad u baahan tahay bocor cade. intaas ayaa qada uga dhigaysa. waa qada caafimaad leh wax badan u tari doonto biidnillaahi alkariim. ilmahaaga in badan ku saacidi doonto fitamiinaadka jirkiisa ka maqan iyo waxyaabaha uu u baahan yahay aad ku saacideyn doono. sida caadiga ah marka qadada ilmahaaga waa in ay noqotaa mid isku dheelitiran. waxa u baahan tahay malaay jeex malaay ah. waxa kale aad u baahan tahay hal xabo oo baradho ah, hal xabo bocor cade ah. intaas yacni bocor cadaha mid yar aduu yahay hal xabo uga dhig, hadduu laakiin mid weyn yahay jeexa ku filan. bocor cadaha biyo kusoo kari, baradhadan biyo kusoo kari ka bacdi hadhooti iskugu rid ama hadii kale ilmaha hadii jiraan 2 sano ilaa sanad ay u dhaxeeyaan oo kale u jeex waxa uga dhigtaa fartaada oo kale dhudhub uga dhig. kadib si malaaygan sidoo kale gacanta u geli si fiican ay u cunayaan caafimaad ay ka helayaan wax fiican oo waxaad ku arki doontaa jirkooda kusoo kordhay koriimo qurux badan dhinac walba ka dhisan ayuu cunugaaga yeelo doonaa haduu Ilaahay idmo. waxa uga daba marinaysaa biyo cabitaan ah oo aad ka shiiday anwaacda furuudiyada fahamteen. waxaan guda geleynaa oo kale cashadan ayadan aad bay u wacan tahay. quraacday iska agdhow yihiin laakiin wax badan oo waxa ku jiro minerals, vitamins, waxyaabo badan oo jirka ilmahaaga uu u baahan yahay in uu ka helo cashada habeenkii la siinayo si fiicanna uu kaaga seexdo. waxaad u baahan tahay xabad ukun ah. waxa kale aad u baahan tahay moos jab ah. mooska waa soo jijibinaysaa ka bacdina ukuntii ayaa ku dhex daree si fiican ayaad isugu ridqaysaa. kadibna waxaad sameynay waa u dubaysaa ma fahamtay. qaabkan camal uu noqonayaa caano ayaad ugu qooshi kartaa aad ku sii kartaa. maasha Allah waaye. hadii aad sidaan ugu sameeyid jadwalka ilmahaaga aad ugu saxdid waxaa hubaal ah in cunugaas koriimo qurux badan uu korayo cunto diidna uu sakaano qoreenin. ilmaha badanaa cuntada diido waa ilma aan cuntada garaneynin ama xaalado caafimaad iska haysto.
ilmaha bahalka ka daaweeya haday gooryaamo qabaan ama bakteeriyada caloosha ay qabaan oo kale. haday abateedka uu ka xiran yahay abateedkiisa u fur sharoobooyin aad ku caawi doonana aniga ayaan ku haayo. ila soo xiriir wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah. meel walba aad joogtidna waa lagu keeni doonaa haduu Ilaahay idmo. waan dalbay laakiin waa qoraya ma fahamteen si markii ay ii imaadaan qof walbo aan ugu dhiibo baryayar ay qaadanaysaa imaantaankooda. hooyooyin badan ayayna caawi doonaan insha Allah biidnillah. mar walbo aniga alaab aan keeno ama cuntooyinka caruurta aan keeno waxaan jeclahay wax tayo wanaagsan leh dad ka duwan inaan keeno. laakiin wixii markii ay ka go'aan bulshada waxaa moodaa ama macaamiisha kugu xirneed waxaa moodaa in mar walbo wixii ay heli karaan camal ay ka dhigayaan. waxay u baahan yihiin time ma fahamteen. marka wax kasto oo qurux badan ama isku dheelitiran hadaa aragtid waa wax mar walbo caqabado ay ka dambeeyaan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen. ila soo xiriir hadii ilmahaaga abiteed xumo uu ka haayo gabaray. WhatsApp-ka wuxuu saaran yahay profile-ka YouTube-ka sharoobooyin ku caawiyo qiimo macquul ah laga siinayo ayaan ku hayaa. wax badan aad ka faa'iidi doontid insha Allah. xitaa hooyooyinka cuntooyin aad ugu fiican ayaan rabaa in aan ku soo daro borogaraamyada ilmaha oo cuntooyinkooda aan ku iibiyo ma garateen. soo dhawaada insha Allah. muuqaalkan haduu soo gaaro meel sare gaarsiiyo u sheer garay walaasha ay ka faa'iideysato. waa full routine cuntooyinka caruurta ah aad u weyn ayaadna uga heli doontaan insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.